السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالق قيمة يقايها له واني السلامي ميل كستو أدونك كجوكتان saata qaaliga maanta waxaan rabaa keeg yar oo fudud aa ku jimcaysateen inaan iga faa'iideeyo dhammaanteed waxaan leeyahay jumco mubaarak marka ugu hore waxaan u baahannahay 4 xabo ukun ah sidaad u ogtihiin aniga ma jecli ukunta inaan ka badiyo 4 xabo kama badiyo keeg kasta aan karinaayo dabcan hal koob oo sokor ah intaas ayaan isku qasaynaa marka hore hal qaado oo subag ah qaado labaad qaado iyo bar ayaan ku shubay hal koob iyo bar oo bur ayaan ku shubayaa isticmaalayana waxaa way burka oo fixisada leh saa mar walba lagu sheego hal qaado yaris oo baking powder ah marka ugu hore waxaan isticmaalayaa qaadada intaan mashiinta u adeegsanin ml oo caano ayaan ku shubayaa sidaad u aragtiin halka waxaan ku haystaa ginger biscuit ama biscuitka gingerga aan soo tumay kal iyo mooye ayaan u qaatay waxaan rabaa kastoo inuu noqdo qajac gingerna waxaa weeyaan biscuitka oo leh ma aragteen zanjabiilka weeyaan kaas ayaan maanta ku darayaa maasha allah flavor very nice flavor u yeelaya waxaan ku ridaa digsiga foornada ama panka foornada ayaan subag intaan soo mariyay kadib bur ayaan dusha ka mariyay kolay nin kasta wuu garanayaa laakiin waxaa jira dad oo dhalinyaro aan fahansaneen marka iyagaan u explain garana insha allah alaabtii aan isku darsanay ama isku soo qasanay ayaa halkaa ku rogayaa asxaabta saad u aragtiin waa inuu diyaar foornada ayuu diyaar u yahay ovenka ayaan gashanayna insha allah 180 30 ilaa 40 daqiiqo saa mar walba u dhaho nin kasta ay foornadiisa ay ku xiran tahay waxaa laga yaabaa foornadaada inay dhaqso dabka uu zaa'id u yahay marka insha allah la soco ayaan leeyahay isku soo noqosho labaad ha iga iloobin asxaabta qaaliga like ina ii saartiin subscribe insha allah ina ii saartiin dhiirigelinaya ii tahay aadana ugu mahadsantihiin asharta iyo la higta sharaxaad ha looga dhigo okay asxaabtayda keega wuu noo soo karay marka waxaan sameynaa dhinaca kale ayaan u rogayaa saad u aragteen dhinacaas waa sida dhinacan marka u rogana saas ayuu noqonayaa waayo dhinaca waxaan ugu rogaya waxaan rabaa wuu isla simanyi ma aho inaan jajaro ma rabi simple ayaan ka rabaa kadib waxaan sameynayaa karameel aan soo sameeyay ayaan dusha uga saarayaa
karameel yar ayaan usoo sameeyey. karameelkani lama qaybsanin markaan sameyna waayo karameelka wuxuu yaalaa channelkayga gudaha haddaa u raacdid waa ka helaysaa. macnaha aan karameelka aan dusha uga saaro waxay tahay popcorn ayaan rabaa korkeena aan nooga shubo ama daangadana waa ii diyaarsaneed. haddaa aragtid inaa ogaadsaan u sameeyo daanga ayaa ku jirtaa channelkayga hoos ayaa u raacaysaa insha allah waad arki doontaa anigoo sameynayo karameelka anigoo sameynayo daangada insha allah. qoys kasta ilmihiisa si ayuu maxaa la dhihi jiray uu sameeyaa ama ma aragtaa qoys kasta ilmihiisa si ayuu ma aragtaa uu la dhaqdaa. aniga ilmahayga waxaan siiyaa macmacaanka maalinta jumcaha oo bas ah. jumcaha bas ayaan siiyaa macmacaanka. waa only one day basaan u sameeyey hal maalin lee u sameeyey. maalintaas markaas maasha allah waa u qurxiyaa macaankooda. marka keegana way jecel yihiin daangadana way jecel yihiin. marka sida la aliga decorationka ugu sameynayaa waxay jecel yihiin ayaan iskugu darayaa. marka maasha allah indhahoodana ugu soo jiidanayaa wayna ka helayaan. ilmaha waxay wax yar marka u sameysid maasha allah aad ay ugu farxayaan. insha allah waxaan rajeynayaa in ilmihiina uga faa'iideyn doontiin. ilmaha naftirkooda waxyaalaha way jecel yihiin inay sameeyaan artska waxyaalaha decorationka ma aragtaa waxaan ku dhahay ilmaha iyaga naftirkooda si inay samaystaan waxyaalahay jecel yihiin iyo kaartuunyaashay jecel yihiin iyo waxyaalaha kasta ay ka helaan isla sameeya isku tijaabiya inaa isla samaysiin. way ka helaan aad ilmahana ma aragtaa waa ku mashquulayaan. ilmaha in la mashquuliyo aad ay u fiicanta maho. ilmaha haddii la mashquulin ma fiicno. special anaka wadamahan deganahay waayo wadamaha yurubka ilmaha waa inaa mashquulisid. hadda aan mashquulin waxaa weeye haye ka waramahayse u aragteen waa iska casariye yar oo wanaagsan oona ilmaha ay ku farxayaan maaho. xaajiga ilmaha kulli dhammaan reerka dhan way ku farxayaan markay arkaan. waa wax yaroo iska basiida oo qurux laga dhigay. waxaa weeye flavorgiisana aad ayuu macaan yahay. cripsy waaye yaa daangadana maasha allah inama caadi ma aha. isku dhuuq kala dhuuq wey maaho. marka waxaan rajeynayaa inaa maanta ka faa'iideen insha allah. asxaabta qaaliga aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina. videoga like saar subscribe saar insha allah hadday igu cusub tahay dhiirigelin ay ii tahay waana ku mahadsan tahay. gambaleelka furo video kasta aan soo geli aad daawadaha koowaad u noqotid. maasha allah keeg cajiib oo ishcalaa weeyaan. ilmaha uga faa'iideeya. ilmaha way jecel yihiin waxyaalaha yaroo la qurxiyo insha allah waxaan rajeynaa ilmahana uga faa'iidan doontiin. gabdhaha facebooka feedback iga siinayaan oo sawirahana ii soo dirayaan markay cuntooyinka tijaabiyeen waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin aad wajazaakallahu khayr. saan sawiraha igu soo diraysiin aadaan ugu farxaa markaan arko. asxaabta qaaliga waxaan leeyahay intaasi video ku xigo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.